mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka hawd ayaa maanta deeq biyaa kala wareegay hay'adda Action Aid oo kaashanaysa hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland. deeqdan biyaha ahayd oo dhamay 30 booyadood oo biyaa ayaa ahaa kuwa loogu talagalay bulshada abaaraysan ee ku dhaqan degmooyinka Balligubadle, Gumburaha, Balle Cabane, Sayla iyo tuulooyinka hoos yimaada degmooyinkaasi gobolka hawd. deeqdaasi biyaa ahayd ayaa waxa bulshada gobolka hawd ugu soo deeqday hay'adda Action Aid oo kaashanaysa hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland. waxaana madashii kaalmadaasi biyaa ahayd lagula kala wareegayay ka hadlay xubno ay ka mid ahaayeen isku duwaha hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland ee gobolka Maroodi Jeex Yuusuf Daawud Xaaji Cabdullaahi Shiil iyo sarkaal sare oo ka socday hay'adda Action Aid xafiiskeeda Soomaaliland iyo xubno kale. maanta halkan waxaanu u soconaa oo sidnaa deeq 30 booyadood oo biyaa oo loogu soo talagalay hay'adda Action Aid bixisay soo marisay hay'adda NADFOR ee dawladda kaydka hay'adda diyaargarowga aafooyinka kaydka qaranka oo ka socdo. waxaanu idinku soo dalagalay 30 booyadood ee biyaha inaanu gaarsiino tuulayaasha uu ka kooban yahay gobolku. sida ogtihiinba dawladdu baaq ay abaareed ayay bixisay hay'adda Action Aid waa hay'addii ugu horeysay ka soo horjawaabta. aad iyo aad bay u mahadsantahay Action Aid, aad baan ugu mahadcelinaynaa. So I want to say the reason why we are here today is because as Action Aid we operate in Somaliland is under the approval of the government of Somaliland as an international organization. So about 2 weeks ago, NADFOR invited us for a meeting, and at that meeting they asked all NGOs who are operating in Somaliland to come to NADFOR and show them their plan to support the droughts. gaar ula shaqeynay hay'adda NADFOR asasmanada ay samaysay 2 week ka horna NADFOR ayaa maxaa soo ka yeedhay hay'ado noona sheegtay inaanu wixii gacan ka geysano waqtigan xaadirka taagan abaaraha oo ay ugu horeysay biyo dhaamisku. saadaradeed ayuu maanta aynu Action Aid ahaana aan uga jawaabanaa. halka markaa waxa Action Aid aan ka fulinaynaa waxa weeye muxuu ahaa gobolka biyo dhaamis 30 maanta ah muxuu ahaa بريتولو يدنا دي لا نسلح له وسي سocon doono 25 boolid gaarsiin doona hadii la helaado farweyna noogu xidara saan dambe oo isaguna 25 waxaan maanta halkan isku nimid inaynu qaybino 30 boolidood oo loogu talagalay degmada Balligubadle iyo deegaanada hoos yimaada taasoo ay bixisay hay'adda Action Aid annagoo shirkadda Cafe Total Logistics aanu hay'adii qandaraaska sii gaarsiinay dadweynaha. waxa iyaguna halkaasi hadallo mahadnaqa ka jeediyay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen maayirka degmada Balligubadle Cabdi Iimaan Jaamac iyo taliyaha qaybta ee ciidanka booliska ee gobolka Hawd Cali Ismaaciil Faarax iyo barasaabka gobolka Hawd Axmed Egayre. maanta halkan waxa taagan 30 booyadood oo ay bixisay Action Aid oo loogu talagalay gobolka Hawd kuwaasoo barasaabku qorsheeyay aan ugu talagalnay in 27 goobood ee goob doorasho tuulooyinka ah in min hal booyad lagu waraabiyo dadka jilicsan. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa hay'adda Action Aid ee 30 booyadood ugu deeqday gobolka Hawd oo soo marisay hay'adda aafooyinka iyo abaaraha. aad iyo aad baan ayaga ugu mahadnaqayaa. maanta gargaarka hay'adda Action Aid iyo hay'adda aafooyinka gobolka ugu deeqeen aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hay'adda Action Aid oo emergency-ga biyaha ee fariimaha yagii judhiiba qaranku u gudbiyay ka soo jawaabtay iyo hay'adda aafooyinkaba mahadnaq weyn baan maartay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala khayr badan ha siiyo. waxaan iyagana aan halka ka sheegayaa 27 booyadood weeyaan waxaan u qorsheynay 27kii goob doorasho ee gobolka Hawd iyo 3 degme Balle Cabane iyo Gumburaha iyo Sayla oo min booyad loogu daro 30kaasi ku dhan yahay 30kii booyadood sidaasaan u qorsheynay. halkan waxa hareerahayga taagan oo aan ku wareejinaynaa maayirkii degmada Balligubadle, gudoomiyihii degmada Sayla, gudoomiyihii degmada Balle Cabane, gudoomiyihii degmada Gumburaha. mas'uuliyadana iyaga qaadaya mas'uuliyadda meelaha la geynayo iyo sida loo isticmaalayo iyo sida loo tashiilayaba waanu ku daba joognaa inay dadkii loogu tala gaadhaan. waxaan halkan baaq uga jeedinayaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa
biyo dhaaminta iyo wax kastoo waxtara oo lagu gaarsiinayo ummadda khaasatan gobolka hawd la soo gaarsiinaya waa soo dhawaynaynaa waanan u fududaynaynaa wax kasta oo fududayna waxaan iyagana u baaqayaa xildhibaanada gobolka hawd ka sharxan ama gobolka Maroodi Jeex khaasatan inay qaar hore biyo keenana way jiraan inay imikana loo baahan yahay inay biyo keenaan ma aha hay'ad markay biyo keento in musharrixii laga doonayo ummadda inuu wax u qabto soo dhinac taaga hay'adda oo uu isaguna ka dhinac hadlo looma baahna waxa loo baahan yahay inaad idinku waxa geysanaysaan si cad u keento waa inaydaan soo raacin marka maaragtay qof kale wax bixinayo ay idinuga faa'iideysataan dadkiina sida wax ugu qaban lahaydeen waxaan iyagana halkan aan doonaya inaan ka xuso u mahad celiyo gudida abaaraha qaranka taakulaynta abaaraha qaranka ee madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay gudoomiyaha wasiirka diinta iyo awqaaftu ka mid yahay waxay noo soo direen 2 booyadood oo 4 casho ka shaqeynaya degmada Sayla iyo degmada Balicabane oo runtii aad iyo aad baahi on ka jiray iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyagana u mahad celinayaa hay'adan qandaraaska soo qaadatay KTL oo runtii aan nagu cusbayn maanta gobolada badan oo Soomaaliland ka shaqeysa si wanaagsan u gudata had iyo jeer amaanada iyo mas'uuliyadda loo dhibo maxamed Shiciir Axmed iyo Cabdinajiib Dayib Cusmaan TV qaranka Soomaaliland magaalada Baligubadle